Soomaali Maxamed ay horta salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaalow, qisadii ninkii baan idiin wadaa horta. War news iga guddooma. Ninkii markaan la soo sheekaystay waxaas igu yiri walaalay aan heshiinaan isku laabana. Waa ninkan shalay sawirkiisa dhinacayga soo dhigood aragteen. marka aan heshiinaa siri ninkii maalintii qaraxa soo badhacay aan iri ninkayga qaraxi soo buu ku dhintay oo asagii reerkiis inta ii heshiiyeen iga dhuuntay ilmahaygana dayacaduur cidla anakoo tuuran oo ciyaal iga dhumay. hadda maanta wuxuu yiri waa heshiinaynaa. reerkaygii markay i kaxaystoon ay dibadii geysteen qurbaha ay geeyeen oo ani ilmahayga isku dayacan oo meesha isku silacnay ay iga soo wateen. hadda walaalayaalow ninkii wuxuu yiri inaan heshiinaan rabaa. markaan ninkii wareystay oo niri waa ciyaalkaada aabahood iskala heshii u tanaasul aan irina. reerkaygina ay dhaheen haddaan kugu maqalna 5 xabo waxaan ahaan kugu dhufani ma haynin inta Afrika ku geynay leeyihiin oo ani ayagu ku kala dhimanay barga masaakaysa salaamaynin waxaa ku naagan guursaday gabar ay habartay dhashay oo 3 cunuga la ii dhalay oo 3 cunuga ii joogtay naagti. marka walaalayaal 3 cunug iyo naagti iyo ninkii ma isku qaataa oo ilaahay isu keen macnaya ma iraha oo ma sida ayadahan ku qaabila oo reerkaygina ku kala go'naa shalay abaalka ogaantii dhibaatada iga soo bixi daruufta wadankaana keenay miya no face u soo qoraa oo ninkii ilmihiisa qaata mase walaalayaal ninkan waa iska xiraa teleefankiisa bal ila soo tala igu cakirane ilaahay khayr ha siiyo taladaanay Soomaali baan ugu baahanahay inay tala iga siiso arrintan. marka waxaan inka codsanayaa wixii tala waa xaqiina inaad tala isoo siisiin inaan ninkan u go'o iyo inaan reerkayga u go'o labadaas option ay hortaale. ninkan waa ninkii shalay meeshii idiin soo dhigeen ma ninkan baa u go'a mise reerkii baan u go'a bartala soo siiyo ilaahay khayr ha siiyo waana idin salaamaya in badan guuliga gobonnimaan idin rajiyay wixii taladana waa xaqi